salaanta bacdi waxa weeyaan musharaxa de waxa weeyaan waa halkii uu dhashay waa halkii uu ku dhashay weeyaan halkan waxa weeyaan isaga ku dhashay oo aabihii baa ku dhashay oo weliba xawaashiisa inoo muuqata عنك عمرك تاني قربك مع هدي يكون هاي وانن دقمر ولا شيء صار شيء نحن دماغ واحد دماغ ما كل شيء كان أبي وكل شيء أولي وانكم كأصلا قربك مع وحوي ومن جامع علم له شهرين ستة بل لكن يروح يهاي هدي هاي كل جايه ما أنت أيضا رشم عطاه إلى الفترة بسينه إلى الحيوانات بدور دونه deegaankeena daadku qaatay iyo haddii la ku leeyahay deegaanka baabay wuu isaga ka hor doona haddii la ka dhigo dalkeena waxa weeye in furteena siino qof aan u yeelanayna qofna la uga yeelin diyaar ma nahay haddaan nahay degmada Waragraan waxaan leeyahay xildhibaanka yagii Yuusuf Diiriye Xaaji Ibraahim oo aan soo dhaweynaa Yuusuf Diiriye Xaaji Ibraahim waxaan dalkaani iyo dadkaani baan u timi waxaan kuugu ballan qaadanaa sidaa wacan ee aad kuu soo dhaweynay inaanu hawshaada ku gelagelayno oo farta kuu siino dadweyne maxaa leedihiin dhammaantiin ma dooranaa ninkaa inagu haddaynu reer Waragraan musharaxa inoo sharaxan ee Yuusuf Diiriye waa inaynu farteena siino waxaad magaalada biyo ku soo joogay waa ninkii ka xidhi lahaa ee ku halgami lahaa weeye waa ninkii ummadda wuxuu qaban lahaa waa nin mutacalima waa graduate waa ninkaa shahaadada sita ma aha dadkii baabal khiyaamada ahaa ee cusbiyada islama yaaci jiree lacagta doonayay waa ninkaa ciise uga soo shekeeyey waa hantiye waxaan ku soo gabagabanayaa ku dhammaynayaa haddaynu reer Waragraan waa ninkii scholarshipka iyo iskuulada iyo dhakhtarka iyo dawada iyo qofka dayacan mid walba uu la tagi lahay ninkaas dad soo saaro war farteena siino Yuusuf Diiriye Ibraahim baan maanta wadnaa xildhibaanka muddo doora baanu ka taleynaynay dadka qaar isaga istoorta qaar waa la doortaa guddi fara badan baan u diray waxaanu kaga talinay Waragraan baa dhowr goor nagu soo qaylisay waxya biyana waa nagu jabay safaynkuna waa naga maqan yahay waxaanu ugu diyaar garownay ninkii inta wax ka qaban lahaa inaanu raadino waxa uu noqday xildhibaan Yuusuf Diiriye Ibraahim ayuu noqday talaanu ku keenay reerka keenay idinkana maanta waa idin keenay ma ha ku soo bixi jiray iska tagi jiray wuu idin soo baxaya insha Allah bismillaahi kariim isagana waxaan leenahay waxa maahiya war maanta waxa maahiya isaguna dib uu ku soo noqon doonaa inta waxa ay raacay meeshan madlab kale loo mayman xildhibaanka la yidhaaho Yuusuf Diiriye Ibraahim ayaanu nimi idina sii joogteen u diyaar garoobideen waynu isla wada ognahay waxaan oo dhan waxaanu leenahay waa aragnaayo waa diyaar garoobdeene u sii diyaar garoobo fartana u diyaar garay Allahumma salli ala Muhammad sayyidina Muhammad halkan waxaan ka salaamayaa haweenka sharafta badan leh ee ilaa iyo masaaka halkan noo fadhiyay noo soo jeeday ilaa xalay dhalinyarada cuqaasha salaadiinta waxgaradka martida sharafta leh halkan marisay gudoomiyaha heer qaran ee garabka haweenka xusbiga kulmiye Sahra Salebaan Cawil Go'aare Maxamuud Cawad dhammaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka wa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib maanta waxaan halkan u joognaa Waragraan oo aan wadnay xildhibaan daayar shiraban aqoonyahana oo aan isniri malaa waa kii gobolka Togdheer degmada Burco iyo Waragraan iyo hareeraheeda iyo tuulooyinka ku hareeraysan oo dhan ee ay degaan hoos timaada gobolka Togdheer degmada Burco hoos timaada waa xildhibaankii wax ka qaban lahaa ayaan maanta wadnaa oo daayar
oo shiraban ma sha Allah tabaarakallah waxaan leenahay maanta idinkaan idila joognaa reer war cibraanow marti baan idin nahay martina idinkama nihin wax kale waxaan marti idinka nahay ina kaan wadno ina codka ku hubsataan oo insha Allah bilmilaahi karin maalinta ay koob iyo saddex May tahay ina ugu gurtaan insha Allah bilmilaahi karin salaanta kadib anagu xisbi xaakimka kulbiye hadaan nahay waxa la idin soo xulay aqoon-yahano waxa la idin soo xulay waxgarad maantana waxa la idin hor keenay xildhibaan Yuusuf wuxuu u baahan yahay maanta codkiina aba xisbi abaareedka ma sharaxna insha Allah bismillaahi kariin codkiina ku hubsada Yuusufna maanta u hiiliya Yuusuf baan idin wadnaa waa xildhibaan shiraaban waa xildhibaan ka soo jeeda degmada wal Cimraan magacii Cimraan oo dhan buu sitaa waxaan u maleynayaa inuu noqon doono ka xildhibaanada degmada ka ugu horeyn doona lambar 1 ka noqon doona insha Allah bismillaahi kariim waxaan aad ugu mahadnaqayaa dadweynaha reer war Cimraan ee halkan ugu soo dhaweeyay ee sida sharafta mudan noo soo dhameeyay odayaasha uqaasha salaadiinta ugaasiyada dhammaan garabka haweenka dhalinyarada daada yar ubaxa yar yar iyo kacaanka ina soo hor fadhiya dhammaantood waan salaamayaa waxa kale oo aan u salaamayaa madaxda xisbiga kulmiye ee ay kow ka tahay gudoomiyaha garabka haweenka ee xisbiga kulmiye sahra aynu maanta nasiib u helay oo ayna hadaynu reer war Cibraan nahay aynu aad iyo aad ugu nasiib wanaagsanaanay inaynu maanta musharax ka noqono xisbil xaakimkii talada hayay ee hogaaminayay dalka mar labaad waxaynu nasiib u helay nimca iyo barwaaqo ilaahay nagu galadaystay mar saddexaad waxaynu nasiib u helay daayar fara badan oo dhammaantood halka soo fadhida oo ubax iyo kacaan iyo daayartii dalka iyo jiilkii dadka u soo kacayay oo iyaguna dhammaantood si qurux badan oo sharafi ku jirto halkan uga soo muuqda oo si wanaagsanna madaxda sharafta leh iyo xildhibaanka iyo dadweynaha intaba u soo dhaweeyay waxaan halkan idinka sheegayaa haddii ilaahay yidhaa oo codka si sharaf loo martila aynu u helo inaan waxqabad degmada waxqabad wanaagsan oo aasaasiga ah aan ka qaban doono insha Allah taala ayaa hamigaygu yahay waxa kaloo hamigaygu yahay waxqabadka aasaasiga ah oo ah waxbarashada lambar 1 waxbarashadu العلم النور والجهل الظلام بالله العلم النور والجهل الظلام وحبرشدو ولمبر كو اساسيغا nolosha weey waa waxa aynu wax ku higsanayno wax ku noqonayno ummad aynu ku matelayno lambar 2 caafimaadka ilaahay subhanahu wa ta'ala caafimaadka isaga ayaa ina siiyay waa waxa uu bini'aadanka ku galadaystay isaguna waa shayga labaad ee aasaasiga ah ee looga baahan yahay mujtamac kasto meel isugu yimid in dayactirkiisa iyo waxqabadkiisaba kor loo qaado shayga saddexaad ee soo raaca waxa weeye waa biyuhu jirkeena bini'aadanku boqolkiiba 75 biyo ayuu ka samaysan yahay biyo ayuu ka samaysan yahay shayga saddexaadna waa biyuhu laba qaybood ayay isugu jiraan qayb waa biyaha dhulka maraya ee daadka ah ee nimcadaasi marka ay degdo nimcadu marka ay daado waa biyaha dhulka maraya ee daadadka ah sidii looga faa'iideysan lahaa midina waa biyaha in jirka bini'aadanku uu ka samaysan yahay waa kuwa la cabayo boqolkiiba 70 buu ka kooban yahay
marka qodobka saddexaad aan ku daraya waxa weeye biyaha degmada sida imika aan ku soo galnay wadooyinkeeda aan soo maray aan ku arkaynay ee aafeeyay dhinac walba ka soo galay sidii wax looga qaban lahaa ee aan wax uga qaban lahayn hadii aan la yiraahdo ee aan marinadeedii u sameyn lahayn iyo wadooyinkeedii ee wixii qabasho u baahan biyaha loo qaban lahaa ee looga faa'iideysan lahaa weeyaan insha Allah ta'ala waxaanu si sharaf leh idin ka codsanaynaa in codkiina si sharaf leh noogu deeqdaan wax qabad aanu dabadeedna idinku bedelo waxba hadalka sii badin maayo salaadii jimcaha inoo taagan jimcihii baa ina sugaya waxaan idinkaga tegayaa insha Allah ta'ala lambarka xildhibaanku waa 213 waa ka halka ku yaala 213 baa la yiraahaa halka ka wada eegta insha Allah ta'ala waxaan idin leeyahay lambarka maalinta 31 May ee aynu codka bixinayno insha Allah ta'ala codkoma yaala oo ina kaafiya aynu helno sidaas iyo maalin wanaagsan